بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي ومهد أحمد عمر وحان ما أنت هلكن كدو بينا مادة سياسة دولة فصل أفراد دوكسي السرع جبتر كلحاد وقامين يماملك 10 كيس أفراد وحشيغي merits of a good leadership and merits of a poor leadership waxyaabaha faa'iidooyinka uu leeyahay hoggaanka wanaagsan iyo ceebaha uu leeyahay hoggaanka aan wanaagsanayn ayuu ka hadlayaa haddii alla idmo markii casharkan dhamaado waxaan rajaynaynaa natiijooyin barasho oo saddex ah midka koowaad inaynu sheegi karro waxyaabaha wanaagyada ee uu leeyahay hoggaanka wanaagsan kan labaad oo ah inaynu sheegi karno ceebaha uu leeyahay hoggaanka aan wanaagsanayn iyo ugu dambeyntii inaynu garanno ama aynu sharixi karro sida uu hoggaamiyaha wanaagsani u caawiyo waddankiisa nabadgelyo iyo barwaaqo u gaarsiin karo inaynu wuxuun ka naqaano oo faham aan ka haysano ayaynu insha Allah ku baran doonaa marka laga hadlayo advantages of a good leader ama good leadership hoggaanka wanaagsan hoggaamiyaha wanaagsan marka ilaa hoggaanku wuxuu ka imaanayaa hoggaamiyaha wanaagsani wuxuu abuuraa wax la yiraahdo hiraal ama hadaf fog ayuu abuuraa kaas oo la hoggaamiyaasha siiya direction sida halka ka muuqata direction visionku waxay tahay waa meesha loo socdo haddii uu hoggaamiyuhu sawiri karin halka la aadayo dadkuna dadka uu hoggaaminayo aanay u socon waxa adkaanaysa in la wada socdo waxa imaanaysa in hoggaamiyaha laga hor yimaado sababtu waxay tahay ujeedo loo wada shaqeynayo lama yaqaan laakiin haddii la yaqaano halka la tegayo oo reerka loo raray iyo sida loo tegayo way fududahay marka in la wada shaqeeyo oo gacmaha la isqabsado way fududaanaysaa qodobka labaad waxyaabaha faa'iidooyinka lagu sheego waxa ka mid ah waxa uu sameeyaa wax la yiraahdo clarity halka la tegayo ama sida loo tegayo laftigeedana wuu muujiyaa haddii la sheego halka la tegayo laakiin aan lagu xijin sida loo tegayo ayaduna waxay noqonaysaa in sida hawtal hamagi marka la iska yaaco ayay noqonaysaa qodobka labaad uu leeyahay waxa ka mid ah wuxuu abuuraa wax la yiraahdo confidence wuxuu abuuraa isku kalsoonaan in shaqada la qaban karo mar walba waa dhiirigeliyo wanaagsan ma aha qof dadka niyad jabiya qof dadka ku hor cataaba qof yiraahdo shaqada lama qaban karo ama halka lama gaari karo hadba waxay ku xiran tahay sida uu hoggaamiyuhu u dhiirigeliyo dadkiisa ama dadka uu hoggaaminayo meesha la gaarayo waana arrin muhiim ah arrintaas qodobka saddexaad waxa lagu sheegay inuu yahay inuu dhaqdhaqaajiyo maskaxda ama uu sameeyo inay dadku fekeraan inay dadku shaqeeyaan wax soo saaraan macnaheedu waxay tahay waa shaqo abuuro wanaagsan haddii shaqo la abuuro shaqadu maaha mid inta loo shaqato lacag laga qaato laakiin waxay tahay mid maskaxda qofka uu dhalaaliyo isla markaasna uu garto maxaa adiga kula gudboon maxaa lagu abuuray halkee tegaysaa maxaa adduunka ku soo kordhinaysaa su'aalaha noocaas oo kale ah hoggaamiyaashu ayaga ayaa abuura maxaa yeelay waa dadkii hormuud u ah mar walba dadku ay ku dayanayaan waxa kale ay sameeyaan wax la yiraahdo skills waxay abuuraaniin xirfad hoggaaminimo ayay ku abuuraan dadka kale oo ma noqdaan mar walba hoggaamiyaha wanaagsani mid dadka iska haysta isagu oo uu yahay in isaga Ilaahay uu talagalay inuu hoggaamiyo laakiin waa inuu abuuraa fursad si fursadda loo helana waa in xirfadihii maamulka ama xirfadihii hoggaaminta inay meesha ka dhex socdaan hadba waxay ku xiran tahay meesha sida ay tahay haddii waddan la hoggaaminayo waa in waddanka dadkii hoggaamin lahaa waddanku uu diyaariyaa laakiin waddanku inuu diyaariyo maaha cid mar walba u nacamlaaha oo ciddaa wax hoggaaminaysa u saabcisa macno badan ma samaynayso waxaa la rabaa dad waddan kale una diyaartay inay hoggaamiyaan iskuna ixtiraama cidda hoggaaminaysa in la diyaariyo arrintaas aad bay muhiim u tahay xagga abuuridda xirfadaha hoggaaminta waxaa kaloo iyaduna ka mid ah waxa uu sameeyaa wax la yiraahdo inaynu guulaysano ayuu nagu taageeraa mar walba wuxuu kula garab taagan yahay hoggaamiyaha wanaagsani in aad guulaysatid adiga laftigaagu wuxuu kaa dhex tusayaa danta guud tan gaarka mar kasta sababtu waxay tahay arrintaasi waxay keentaa haddii danta guud laga dhex arko midda gaarka qofku waa inuu tan guud hormariyo ciddaas macnaha abuuri kartana waa hoggaamiyaha laakiin haddii qofku uu maanta oo dhan kugula warwareego oo aragtay inuu isagu dantiisa gaarka ka shaqaysanayo dee waxaa imaanaysa in markaa dadku aysan ku dhiiran inay danta guud ka shaqeeyaan haddii laakiin la arko ciddii meesha hoggaaminaysay maamulihii madaxweynihii wasiirkii oo markaa dantii guud ka shaqaynaya dadka kalena way ku dhiiranayaan mana aha wax la iska dhigdhigo ama wax maalmo la jiro laakiin waa wax qofku ay tahay inuu macnaha ay ka dhab tahay commitedna uu ku yahay mar walbana ay ka mid tahay noloshiisa waxaa kaloo jira dadka hoggaamiyaasha wanaagsan waxay gaaraan go'aamo adag xilliyo adag ayaa lagu baxsadaa ma aha dad jilicsan ma aha dad yiraahda ka baqa go'aamada markay adag tahay waa dad mar walba inaga go'aamada ay gaarayaan dadka la hoggaaminayana u ah inay tusaale ahaan wax badan ay ka badbaadin karaan dadka markaa nool isla markaasna ay abuuri karaan gumarti dhaxalgala jiilasha dambe waxay ku baraaraan dad baa keena tusaale ahaan dee adduunyada hadda sida ay tahay mar walba dad baa soo hoggaaminayay cid walbana meesha ay joogto sida ay ka dhigto ayay ku xiran tahay waxa beritoora laga arkayo waxa kaloo ay sameeyaan waa dad mar walba dadka ay hoggaaminayaan difaaca
oo mar walba waxay isaga dhigaan sida inuu xabad isaga dhigayo kale مثلا leaders take the bullets mar walba isagu maaha inuu adiga isaga ka dhigo xabaddu maaha mid xabad caadi ah laakiin dhibaatooyinka mar walba inuu isaga dhigo dadka uu hogaaminayo inay yihiin dad ilaa 5 isku meel u socda dhamaantooda wada bid qaba hore ayaan u soo aragnay waxa hogaamiyaasha wanaagsan oo dabeecadahoodu yihiin oo ku soo aragnay 10kii saddexaad iyo labaad iyo tusaalahan islaamku waxa uu ka yiri iyo hogaamiyaasha islaamku sida wax soo hogaamiyeen ayaan tusaalayaal ka soo aragnay marka qodobka ku xigana wuxuu noqonayaa leaders expand our world view sida aynu adduunka u aragno not only adduunka laakiin sidoo kale waxay sawiri karaan hogaamiyaha wanaagsan ku qalabaysan diinta islaamka yaqaana shareecada mar walba adduunka iyo aakhirada labadaba waana inaga ku soo aragnay 10kii labaad isla cutubkan leadership and management macnaha 10kiisa labaad leadersku sidoo kale mar walba waa dad naftooda ku qanacsan waa dad aan naftooda self image koodu ama siday soo arkaan uu yahay inay yihiin mar walba ayagu dad naftooda ku qanacsan laakiin aan ahayn dad u arka shaqada ay hayaan iyo sida Ilaahay u sameeyay iyo qaabka uu yahay waxa uu qabanayo dad isku weyn waay laakiin maaha dad mar walba ka carcarara waxyaabaha dadka hortooda ama dareemayo shame maxaa yeelay wuxuu ka shaqeynaa dhaba wanaagsan ba ciidana kuma haysato waxba macnaha qof dadka hortooda sumcad kula weey hadii si kale loo yiraahdo halkan مثلا waxaan benefitska hadii la yiraahdo advantages benefits ama importance waa isku macne waxa la rabaa marka ereyada inaan ku kadsoomin adigu aadan u arag wax kala duwan inay yihiin waxa la rabaa benefits marka lagu yiraahdo ama advantage lagu yiraahdo ama importance lagu yiraahdo ama ereyo kale la macna la isticmaalo mar walba inaad ogaatid in waxaan laga hadlayaa uu yahay muhiimadda waxa uu dhaliyo sawirkan marka waxa uu muujinayaa halka waxa kaaga muuqdo sawirkaas waa merits of a good leadership sida kor marka laga soo bilaabo mar walba wuxuu isku dayaa hogaamiyaha wanaagsan inuu xalliyo khilaafku inuu maamulo marka horeba khilaafku marka in la xalliyo waxa ka horeysa in laga hortago macnaha ereyga conflict managementigu waxaan rajaynayaa inaad dhigateen oo ku dhigateen chapterradii hore conflict managementigu kaliya ma aha in dhibaato markay timaado la qeylqeyliyo laakiin waa in laga hortago ma hadday dhacdana qaabka lagu xalin lahaa laga fikiro waxa kamid ah mar walba waa qof u ah tababare iyo inuu dabagalo shaqooyinka uu diray dadka la shaqeynaya coaching buu sameeyaa wuxuu sameeyaa shaqooyinkii ayuu delegation ku sameeyaa hogaamiyaha wanaagsan delegation waa maxay waa inuu shaqada isagu isku koobiyo wax walba isagu inuu qabanayo inaanu iska dhigin mar walba uu dadkii shaqada wax uga ogolaado si culaysku isaga macnaha uga dhaco shaqaduna u fududaato maxaa yeelay hal qof shaqo ma qaban karo dad waxa jira la yiraahdo mar walba waxay isku koobaaneen shaqadii dadka noocaasi waxa ka fog macnaha astaanta hogaamiyaha wanaagsan baa ka fog sababtoo ay tahay dadka hogaamiyaha wanaagsan hogaamiyaal buu soo saaray mar walba dadka ma hortaagna waa sidoo kale wuxuu sameeyaa wuxuu maamul yaqaanaa changeska waxyaabaha marka isbedeladu yimaadaan cimilada isbedeli kara dhibaatooyin dhaqan-dhaqaale iman kara waxa iman kara dhibaatooyin ama bini'aadam ka sababa ama kuwa rabbaana ha noqdaan waa qof maamuli kara isla markaana dulqaadkeedii leh maaha qof markii dhibaato dhacdo qaylinaya cabaadaya dhahaya waxaana nagu dhacay sidaan maanan moodayn iyo catowga noocaas maxaa yeelay change management waa arrin muhiima inaynu fahanno inaga laftigeena adiga laftigaagu ku dhici karaa qoyskiinu ku dhici karaa magaalada joogto ka dhici karaa isbedeladu way imanayaan adduunku waa isbedel macnaha waa isbedelu joog haddaba sida casharada caadi loo bixinayay hal mar waxay yimi cudurro qaab kale loo bedelay waxaa la rabaa marka in qaabkaas cusub lala jaan qaado ama la maareeyo haddii adigu markaa hogaamiye tahay qodobka ku xiga waxa weeye motivation wuxuu sameeyaa dhiirigeliyo wanaagsan weeye wuxuu sameeyaa mar walba ama uu qaataa talooyinka wanaagsan talana wuu bixiyaa wuxuu kaloo mar walba ogolaadaa dadku inay horumar sameeyaan ayuu mar walba ka shaqeeyaa okay disadvantage baa jira marka hogaamiyaasha aan wanaagsanayn ama hogaaminta aan wanaagsanayn hogaamiyaha aan wanaagsanayni eebaa uu leeyahay waxa ka mid ah qaabka uu dadka ula xiriiraayo aad buu u liitaa communication skillskiisu waa hooseeya inuu wax dhageystana ma leh awood uu wax ku dhageysto dadka dhibaatadooda ku dhageysto ma laha wuxuu kaloo leeyahay waxa la yiraahdo lack of commitment kama go'na shaqada uu qabanayo waxyaabaha kale lagu yaqaan waxa kamid ah unethical behavior akhlaaqiyadkiisu ma wanaagsana sababtu waxay tahay mar walba wuxuu ka shaqeeyaa ama wuxuu ka saaraa inuu self interest gaaro self interest inuu isagu danihiisa ka shaqeeyo halkii uu macnaha hormarin lahaa danta guud waxa laga yaabaa dadka markuu la hadlaayo inuu u sheego in danta guud laga shaqeeyo in waxa la qabanayo laakiin dadku ay ficiliyan u arkaan inaanu qofkan dantooda ka shaqeynayn ama mar walba uu xooga saarayo inuu isagu danihiisa ka shaqeysanayo waa dabeecadaha ama waxyaabaha lagu yaqaano waxyaabaha uu leeyahay hogaamiyaha aan wanaagsanayn ama hogaanka aan wanaagsanayn sidoo kale performance-ga dadka ma dhisi karaan in shaqo la qabto mar walba shaqadii meesha ay ka hayeen waxay noqotaa mid aan si fiican u qabsoomin sababtu waxay tahay
waxa la rabaa inuu by example wax ku hogaamiyo isaga inuu shaqada gacanta la galo mar walba u taagan yahay tusaale ahaan waxa laga yaabaa in la yiraahdo xafiiska waxa la imaanayaa xilligaas qofkii dadka u sheegay ayaa xilliga ugu dambeeyay imanaya marka ma dhacayso inay dadkii hadhow yimaadaan hadday maalinta koowaad yimaadaan arkaan inuu maqan yahay dee ma imanayaan iyaguna sabab u yimaadaan ma jirto badii sababta waxay tahay qofkii sheegay ayaaba meesha imaaneen sidoo kale ma abuuri karaan collaborative environment ama hab lagu wada shaqeeyo oo qof kasta halka uu ku wanaagsan yahay looga faa'iideysto collaborative wuxuu keenaa in aqoonta la midayo resource wixii la hayay laga wada faa'iideysto ayuu keenaa jaantuskani sidoo kale wuxuu muujinayaa negative consequence oo ah waxaan soo koobnay intii hadda aan sheegnay waa sawirka marka waxa loo kala saarayaa negative view of the leader qofka macnaha hogaamiyaha iyo xiriirka ka dhaxaya dadku hogaaminayay marka dadku waxay ka qaadanayaan sawir khaldan hadhowna ma aaminayaan tan labaadna qofka iyo shaqada qofka hogaamiyaha iyo shaqada la qabanayay iyo qofkii wax hogaaminayay iyo organizationkii ama wadankii ama si guud wixii oo dhan isla baaba'an marka saddexdaas aragtiyood ama saddexdaas arrimood kala sareeya waa destructive leadershipka waxyaabaha ku gadaaman hogaamiyaasha aan horsocodka ahayn hogaamiyaasha ceebaha leh ama ceebahoodu ay u badan yihiin mar walba inaysan danta guud ka shaqaynayn ama aysan ka shaqaynayn inay horumar ka sameeyaan meesha ay joogaan waxa jira marka role ama door uu leeyahay hogaamiyaha wanaagsan ku leeyahay dalkiisa arintani waa arin muhiim ah in maskaxda mararka qaarka aan kor u qaadno oo ah wadamada horumaray ee adduunka ka jira maaha qaab isagama dhicin macnaha habeen inta la soo kacay waddankiyo saas lama arkin dad baa ka shaqeeyay dadna marka waxay shaqada uga shaqeeyeen qaab ah farsamaysan ama cilmigoodii bay ku tabaruceen qaarna xoogooda ku tabaruceen qaarna maalkoodii laakiin wax intaas oo ka muhiimsan dad hogaamiyaal ah jira waxaan sawiray dadkana u jiheeyay in sidan loo shaqeeyo arrintan marka waxa muhiim ah dadku inay fahmaan waxa laga yaabaa in aragtaan wadamada meelahaas dad inay ka jooga dhalinyarada soo sawiraya oo meelo qurux badan jooga wadamo sharci la jooga waxaan dad baa ka shaqeeyay dad hogaamiyaal ka shaqeeyo oo dadka hogaamiyaasha ahina sidaynu ku soo aragnay casharka koowaad ma aha dad meelo gaara jooga ama kala rag gaara leh maaha meel kasta joogaan fasal walbay ku jiraan wasaarad walbay ka shaqeeyaan xafiis walbay joogaan shirkad walbay ka shaqeeyaan laakiin waxa la rabaa in nidaamyada sahlaya in dadkaas awoodooda ay soo bandhigaan in la sahlo cidana waxa samayn kara waa maxay qof hogaamiya tusaale ahaan qodobada halkan ku qoran مثلا good leaders kaligeed waxay abuuraan wax loo yaqaan stable and inclusive politics oo ah siyaasad xasiloon oo loo dheeyahay arrintaas aad bay muhiim u tahay sababtu waxay tahay waxa jira saddex xagal isku sidkan oo mar walba hadii mid dhaqaaqo kan kale uu dhaqaaqayo halkan waxa weeye مثلا tusaale ahaan politicska marka siyaasadda laga hadlayo politics economics iyo social culture saddexdan markii mid dhaqaaqo kan kale uu dhaqaaqi sababtu waxay tahay way isku xiran yihiin مثلا hadii siyaasaddu ina ka weerarto sidii inaga ina ka weerarto 30 sano ka hor oo siyaasaddu ay fariisan weydo ama xasilooni daris siyaasadeed la galo waxa imanaysa in ay burburto waxay loo oran jiray dhaqaalihii waddanka tiirarkii dhaqaaluhu ku taagnaa oo dhan inay burburaan ayaa imanaysa markii dhaqaaluhu burburo siyaasadduna weeraro dee dadku way islaynayaan dhaqankuna waa ka halaabaya sidaa daraaddeed haddii dadku aqoontooda hooseyso sidoo kale haddii dadka aqoontooda hooseyso oo dadka aan aqoontooda la dhisin dee dhaqaaluhu ma kacayo dhaqaaluhu waxyaabaha kiciya waxaa ka mid ah dadku inay aqoon yeeshaan dadku markay aqoon yeeshaan hal abuur bay samaynayaan waxay samaynayaan inay ganacsiyo abuuraan waxay samaynayaan inay waxyaabo cusub soo kordhiyaan dhaqaalihii baa kacaya marka waxyaabaha hadda siyaasaddu meelaha qaar ama wadamada siyaasadoodu ay deganeen ay la deglaayeen waxa lagu sheegaa in ay jirto faqri haddii faqriga iyo jaahilnimada la diriro waxa imaanaysa siyaasad degan waxa la rabaa marka saddexda waxyaabood isku sidkan in mid kasta gaarkiisa loo wajiyo siyaasad laga yeesho cidda samayn karana waa hogaamiye wanaagsan weeye qodobka labaad mar walba waxa uu kor u qaadaa isla markaasna uu ilaaliya ammaanka dalku maaha in lagu ilaaliyo rag hubaysan ama military iyo wixii la mida laakiin in dadku dareemaan in ammaankooda ilaashadaan مثلا tusaale ahaan waxa arkaysaa mararka qaarkeed qof ayaa wuxuu qaadanayaa qori buu qaadanaya dad buu iska leynaya ama hanti guud oo dadka u dhaxaysa macnaha la burburinaya marka la burburinayo qofka kan marka hore aan lagu daabicin umana diyaarsana in waxaan hadii uu burburiyo isagu iska burburiyay qofka kan dilay oo macnaha uu dilay inuu isagu iska dilay inuu yahay walaalkii oo garabka ku banaanaaday macnaha waa arrin ay tahay hogaamiyaasha abuuraan security-na qaabkaas loo ilaalin karaa security waa labo sustainable peace and security marka laga hadlayo adduunka macnaheedu waxay tahay waa in caga fiican ku taagantahay wuxuu ma aha in la yiraahdo amaanka la sugaya rag hubaysan baa la soo gelinaya waxa la sameeynaya xuduudaha no that's not the case waxa weeye dadku inay ilaashadaan amaankooda dadku inay fahmaan arrintaas ayaa la rabaa
wixii dhibaatooyin meesha ka jira iyagu inay soo sheegaan qaabka loo abuuri cidda abuuri kartana waa hogaamiyaal fikirkoodu dheer yahay fahamkooduna sarreeyo qodobka saddexaad waxaa lagu sheegi karaa waxa loo yaqaano good governance ayay mar walba sameeyaan kana dadkana ku dhiirigeliyaan good governance wuu ballaaran yahay ama maamul wanaagu waxaana kusoo dhigateen fasalkii saddexaad dugsiga sare waxaa jira marka oo halkan ku qoran principles of good governance oo ilaa 8 qodob aan rajaynaa inaad baartaan oo ay ka mid tahay kow waxaa loo yaqaano transparency and accountability in aysan qofka kan wuxuu ka shaqeynaa in la arko daahfurnaan maaliyadeed inay jirto in laga fogeeyo corruption iyo financial irregularities waxa la yiraahdo ama musuqmaasuq iyo wax isdabamarin maaliyadeed haddii meesha soo gasho dee meeshii macnaha good governance ma jiro in la ilaaliyo dadku inay doortaan dadka ayaga maamulaya lana xisaabtami karaan iyo qodobo macnaha principles of good governance oo aan rajaynaa inaad soo dhigateen haddana aad baartaan mar walba good governance marka la yiraahdo inaad fahamto qodobka ugu dambeeya halkan waxa weeye good leaders waxay ka shaqeeyaan mar walba wadanka dadka dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka in la dhiso sababtoo ay tahay akhlaaqiyaadka iyo aqoontu way wada socdaan akhlaaqdan horeysa cidda ka shaqeysana waxay tahay haddii dadka hogaaminaya ay akhlaaqdooda dhisnayn aqoontooduna dhisnayn way adkaanaysaa dadka inay u sheegaan sababtoo ay tahay waxa kala duwan dadkii dhaqankii iyo ficilkii ayaa kala duwan marka labadan qodob halkan aan ku sheegnay saddexdan qodob waa saddex qodob mar walba isku soo laalaabta oo ay tahay qofka hogaamiye kasta ee dal markaynu ka hadlayno generally wadan inuu ka shaqeeyo ay tahay su'aalaha marka jabtarkan aan rajaynayno dhammaadkiisa inaad ka shaqayn kartaan waxaa ka mid ah kow inaynu sharaxno negative impactiga ama I mean toban qodob oo ah advantage uu leeyahay good leaders 10 20 5 inta adiga qori kartid inaad marka hore qodob aad qortid oo advantage uu leeyahay hogaamiyaha wanaagsan qodobka labaadna waxay tahay saamaynta aan wanaagsanayn ee nagu leeyihiin hogaamiyaasha xun ama hogaamiyaasha aan wanaagsanayn marka hogaamiye leenahay ha ka fiirin dal ama madaxweyne uu kuwa qafilaan hogaamiyuhu meel kastuu jooga hadduu aabuhu hogaaminayo qoyska oo macnaha uusan wanaagsanayn dee natiijada ka dhalan ka dhaal raba inaad cabiri kartid haddii laga hadlaayo qof shirkad maamulaya sidoo kale qof maamulaya magaalo ama tuulo macnaha ama iskuul hadda darajada doonta noqoto laakiin hogaamiyahaasi haddii uusan wanaagsanayn natiijada ka dhalan kardhin xun iyo midda wanaagsan labadaba inaynu naqaano iyo ugu dambeyntii inaynu naqaano haddii hogaamiye wanaagsan dal uu helo sida Soomaaliya oo kale mesela tusaale ahaan waxay benefitska aynu gaareen ama faa'iidooyinka importance benefits ama positive consequence tusaale ahaan haddii sidaa loo dhigo kii la doonaa loo dhigi karaa laakiin muhiimadda waxa weeye inaynu mar walba maskaxda ku hayno wadanka saddex waxyaabood baan rabaa inaan kusoo gabagabay marka benefitska ka hadlayno mesela tusaale ahaan wadamada horumarka sameeya kow hogaamiyaha ugu horeeya resourceska ama geographical locationka ku xiga iyo culture-ka dadkaasi noocada ay yihiin hadday yihiin dad shaqo badan iyo dad aan shaqo badnayn marka qodobada noocaas oo kale mar walba adoo niyadda ku haya heer wadan ma fiirinaya inaad fiiriso benefits of a good leadership مثلا in Somalia in Africa ama meelo kale. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.